sanad cusub iyo bilow cusub muhiim ma sanadkii tagay inaad ka qoomaysid muhiim ma sanadkii tagay inaad shalaato meel aad ugu fadhisid sanadkii tagay wuu tagay waxba iska weydiin sanadkii tagay muhiimadu waxay tahay tagta way tagtay timaatada kaga faa'iideyso fursadda nololeed saaxiib waxba ka fikir sanadkii tagay caqabad walba sanadkii tagay aad la kulantay iska ilow maanta kadib iska ilow sanadka cusub 2021 maxaa ku qorshaysan sanadka cusub ee 2022 maxuu qorshahaaga yahay sanadkan cusub ee 2022 maxaad doonaysaa inaad ka dhabayso sanadkan cusub 2022 maxaad rabtaa hadafkaaga inaad ka dhigto sanadkan cusub mase waxaad doonaysaa meeshaad fadhisay sanadkii hore inaad iska fadhiso mase waxaad doonaysaa inaad ahaato qofkii sanadkii hore aad ahayd mase waxaad rabtaa inaad ahaato sidaad iska ahayd sanadkii hore aad wax isbedelba aad suubin haddii aad doonaysid inaad samayso isbedel muuqda waa inaad marka hore aad ilowdaa sanadkii hore oo dhan wixii ku soo maray waa inaad iska ilowdaa haddaadan iloobin waxay kugu noqon doontaa caqabad ku hortaagan balse 2022 muhiimada saar xoogga saar 2022 haddii aad ku fiican tahay soo jeedinta khudbooyinka waxaad xoogga saartaa inaad baraadka badan aad suubiso saa dadka wax ugu soo kordhisid haddii aad doonaysid inaad la imaado hal abuur cusub ganacsi inaad furatid iyo waxyaabo kale la mid ah dhaqaaq inaad ka dhabaysid hadafyadaas aad leedahay marnaha iska dhumin fursadahaada nololeed waayo markay quraxdu dhacdo waxaa soo baxa xidiga hadafka noloshaadu ma aha inaad wax cunto ama wax aad cabto xoolahaba way cunaan wayna cabaan wixii tagay waxba kama bedeli kartid maadaama aad wax ka bedeli karin waa inaad dhaqaaqdaa wixii cusub ka fikirka wixii tagay waxay kaa baabi'in doonaan timaatada mustaqbalka noloshaada waxba ka fikirin wixii tagay iska ilow wixii tagay waxaad ka fikirtaa inaad bedesho qofkii aad ahayd sanadkii hore sanadka cusub oo bilowday ka faa'iideyso waqtigaaga iskaga ciyaar sanadkii hore oo kale. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.